nin shaqaale ah ayaa in muddo ah guriga uu ka shaqaynayay ka maqnaa kadib waxaa soo garaacday gabadha guriga mas'uulka ka ahayd waxayna ku tiri gurigaas waa laga guuray ee guriga tag soo hagaaji kadibna guriga soo xir ninkii shaqaalaha ahaa uu soo baxay guriga ayuu yimi guriga markuu yimi furo ayuu watay gurigii albaabkiisa hore markuu iska soo furay uu gudaha u soo galay wuxuu arkay gurigii oo sariirta ay jiifto gabar madaxana dhiig ka da'ayo qolka oo dhan uu isku dhex yaacsan yahay oo wada dhiig yahay markii uu naxay uu yaabay ayuu dhahay gabadhii soo wacday ee dhahday guriga tag ee soo hagaaji ayuu dib u wacay wuxuu dhahay guriga xaaladiisa waa sidaas gabadhaasaana dhex jiifta ee anigana waan ka naxay waxaan rabaa askarta inaan u yeero oo guriga arrintiisii la baaro marka waxay ku tiri ninkii gurigii hawicin askarta kadib marka igu dhahay askarta hawicin waan ka shakiyey arrintan inay ida samaysay ay rabto in aniga igu shirqoosho oo dilka dusha layga saaro waayo gabadhu waxay ka cabsatay in askarta ay ka shakiyaan oo dilkan dusha iyada laga saaro laakiin ugu dambeyn ninkii shaqaalaha ahaa wuxuu u yeeray askartii ayaa meesha timid meydkii ayaa waxaa loo diray baaritaanka xagga caafimaadka qaabkii loo dilay wixii sabab ahaa ee qofkii dilay si loo ogaado ninkii shaqaalaha ahana waa loo wacay waa la kaxeeyey saldhiggaa la geeyey waa la baaray oo waraysiya lala yeeshay waxaa la dhahay guriga xilimaad timid saa u timid iyo arrintan say ku dhacday wuxuu dhahay aniga guriga gabadha lahayd ayaa isoo wacday waxay igu tiri guriga dadkii degnaa way ka guureen guriga tag soo hagaaji dibna u soo xir marka wuxuu dhahay gabadha markii arrinta aan u sheegay waxay igu tiri askarta ha u wicin anaa ku imaanay askartiisii ay dhiid ahayd ama dabi baarista ahayd shaki weyn ayaa ku dhashay waxaa la mooday inay gabadha iyada dishay oo ninkaana ay doonaysay dembiga dusha inay u saarto laakiin sidaas ay tahay qaar badan ayaa ka shakisanaa oo askarta ka mid ahaa ninkan inuu asiga gabadha dilay uu dembiga inuu iskaga barayaa la doonaya ugu dambeyn gabadhii ayaa loo yeeray saldhiggaa loogu yeeray way timaaday waa la wareystay waxaa lay arrintan maxaad ka ogtahay gabadhaanna maxay tahay gabadha ayaa la tusay waxay dhahday gabadhaan maahan gabadhii guriga degneed ma ahan gabadh aan guriga ka kireeyey maahan weligeena kuma arag gurigaas inkastoo gurigaan inta badan joogin oo dad kireystay si gaar u kireysteen haddana gurigaan aniga war ii waaya kama haynin oo ma kontarooli jirin dad aan isku fiican nahay ayaa degnaa waxaa lagu dhahay dadkan goormay guriga ka baxeen waxay ugu dhaheen guriga anaga waan ka baxnay way soo waceen guriga anaga waan ka baxnay oo waan ku qanci weynay magaalo kale aan degnay magaaladiina ima iisan sheegin laakiin guriga inay ka baxeen ay ii sheegeen marka waxaa la dadkaas sawiradooda ma haysaa haawi ay dhahday sawiradii ayaa laga qaaday waxaa loo qeybiyey saldhigyada oo dhan si dadkaas loo soo qabto waayo waxaa shaki dhaliyey in ay gabadhii iidan ogeyn gurigii ka baxaan oo ay dhahaan guriga waan ka baxnay maxaa la dhihi jiray guriga waan ka baxnay ee la soco guriga waan ku qanci weynay iyadoon gabadha wax cilad u soo gudbisanin oo meeshaasaa naga xunay naga hagaajaysan dhihin askartii gabadhii gurigii lahayd waxay ka shakeen dadkii guriga degnaa ninkii shaqaalaha ahaa in yar shakigu waa ka yaraaya marka guriga ayaa dib loogu soo laabtay oo baaritaan in dab iyo dacal loo baaro ayaa lagu soo tashaday askartii waxay soo kaxisteen eeyahoodii waxay soo kaxisteen wax walba wax lagu baari lahaa guriga markay soo galeen ayay waxay la kulmeen arrin mucjiso ah oo ay la yaabeen kushiinka ama jikada nin walba si u yaqaano ayaa eydii la waday oo dhan waxay isku gureen kushiinkii ay ku wada carreen guriga meeshii ay wax ka tuhmeen
wax ka uriyeen waa eyda waxaywaanaadka ugu urinta badan oo waxyaabo far badan oo qarsan soo saara marka ugu dambeyn eydii markay meesha ku wada urureen waxaa loo fikiray in meeshan kushiin tahay waxyaabo cuno oo kale urtooda ay eyda uriyeen laakiin nin oo ka mid ah sirbaarayaasha ayaa fahmay inuu eygan gaajeysneen oo wax kale guriga ka uriyay meeshaas ka uriyay waxaa loo yeeray dadka godadka qoda waxaa lahay kushiinkan dhexdiisa eyda meesha ay aad u urinayso qoda ugu dambeyn markii loo yeeray dadkii wax qodayay meeshii waxa ka soo baxay arrin lama filaan ah oo la isdhayn meeshan ayaa waxaas laga arki doonaa horta ugu horeen intaan la qodin ka hor waxaa laga shakiyey marmarka kushiinka yaalay ama mutuleel cid walba say u taqaano kushiinka yaalay oo cusba ayaa laga shakiyey oo mid ka mid ah sirdoonada ama dambibaarayaasha ka shakiyey wuxuu dhahay meeshan waxbaa ka jira ciidana maala yacni meeshan uguma soo cararin meeshan waxbaa ka jira inkastoo ay kala fikri dubanaayeen laakiin qaar ka mid ah ayaa ku raacay meesha in la baaro oo la jebiyey kadib ayaa loo yeeray kuwa godadka qoda iyo dadka qaabilsan inay wax oo dowladda uu shaqeeyo wax qaabilsan meelaha laga shaqeeyo inay soo faqaan waa loo yeeray meeshii ayaa la qoday markii meesha la qoday maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay 6 meed oo dharkooda iyagoo qabo meesha lagu riday godkana wuxuu noqday god weyn oo dadka meedkooda lagu riday askartii sirdoonka ahayd waxay la noqotay arrin mucjiso ah in dad reer intaasoo dhan degnaa haddana aan marna laga shakin inay dil geysanayaan haddana 6 qof oo meeshaan ay ku rideen qofka dadwaadna ay hadda gabadha hadeer dilkeeda ay soo lagu ogaaday ay tahay marka arintii waxay noqotay raggan iyo dumarkan meeshan degnaa inay ahaayeen dad dilaayaal ah oo aad bini'aadamku u ogaarsado oo in badan meeshan dilkan ku geysanayay meel badanna oo wadanka ka mid ah daliilka ay ku geysan jireen inkastoo America meesha dhacdadan ka dhacday waa America waa dhacdooyinkeeda aad ay u fara badan yihiin goboladooda waxyaabo la yaab leh ayaa ka dhacay sirdoonadii waxay go'aan ku gaareen dadkaas in ay si ay noqotaba la soo saaro la soo xiro waxa ku kalifay arintaana in ay sheegaan inta meel wax ku dileen in laga soo saaro oo se lagu soo saari doono waa dadkaas waxay ku fikireen in aan dib dambe loo qaban doonin oo dib dambe loo arki doonin waayo telefoonada caadiga ee laga soo tixraaci karana gabadh marka ay kala soo hadlayeen waxay kala soo hadleen box ama telefoonada wadada ku yaala telefoon caadi ah ma isticmaalaan dadkan oo ma ku wada xiriiraan isgaarsiintan annaga hadda isticmaalno kare internetka iyo waxaas ma isticmaalaan oo boxkaas ay iskala xiriiraan wax walba iskula soo gudbiyaan marka see lagu soo qaban doonaa see lagu arki doonaa arinta halkay gaari doontaa heerkay gaari doontaa insha Allah qaybta dambe ayaan halkaas ka sii wadi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada haddaad nagu cusubtana subscribe noo saar haddaad hore noogu jirtana share iyo like noogu dar inkastoo ay aad u macaan tahay haddana mar walba waxaan jeclaysan inaan qayb idin soo gudbino sad idinkana u fahantaan meeshay ku dambeynayso iyo dadkaas lagu soo qaban doono iyo lagu ogaan doono meeshay joogaan insha Allah welcome